السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذن سلام أصحابك كحرن يوتيوب كشانلكم من معاني channel ميلو بدون دافعه إذا أتكجا سجنتين أبايوي ولا شيء دعواني سميلو بدون دافعه إذا أتكجا سجنتحي ما كل يبان شرح هذا سيدا لو أورجان إسكريو بستياشة بركمها وحاسودن هدي الجواب تاعو حاطهاي سي وفدت ونقروح بدن baad ku organization kartaa maxaad u baahan tahay caagadahan dukaan walba waa lagu gadaa qurbaha san filaayo bacahana waa baco halkaana laga bixina hooverka guriga wax lagu hoovereeyo ama lagu nadiifiyo kan ayaad ku aariya bixinaysaa kadib wuxuu noqonayaa wax yaniishu noqonayaa وكاس هذا أنت محاك صوت ديارسري أنت حكولي بركمي بستيال هالكاسنا دعسديه مشقش ودن ونظيفة أنصار قيبا كرده هالكان بستي بركين كلا أمر تدا أن أدكته هالكان وحش كمان مشقش أكو أورجانيزيشن عي أما استعمالي أنا هذا لكن أباهنين بانكرده عادها سأجيدين وكوان waxaa ku jira sharaxaadihii oo dhan inta isticmaalaya maahan inta kale caagan waxa u daayay ubaxo dhan mana ka jajabayo mana ka kala dhumaayo caagaas kaleeto waxa ku riday wixii shamac ahaa wixii aan isticmaalaya maahan waxa kaleeto marka sidaan ayaad waqas halkaas waxa ku riday kuwa ubaxyada lagu rido sharaxaadaha xitaa waa si kala saaray si aysan isku dhex jajabin marka haddii aad store leedahay saasaad ugu baandeynaysaa haddii kaleetana yacni hooyo walba gurigeeda iyada ayaa og meeshii space ka helayso sidaas ayaad ugu bahaleysanaysaa haddii ilaahay raali ka noqdo bahaladana hadda saanay yihiin laakiin marka halkan laga aariyo bixiyo waxay noqonayaan wax yaniisha waxaa ku dhameel yar boos yar uu ka qaadana boosas badan xitaa kaama qaadanayo bacdan kaleeto waa kana iyadana barkimaha fadhiga galalkooda dhan ayaan ku baandeenaya haddii ilaahay idmo tan waa tana iyadana waxaa ku riday dacsadihii mushkulaha oo nadiif ah marka waa idinkaas asxaabay saas ayaa loo organize gareystaa howl fududeys haddii aad u baahan tahay ku xirnow youtube channelka Muna Macaani channel meel walba dunida daafaheeda aad kaga sugan tahay waa walaashiin Muna Macaani oo idin leh ha iga hilmaamina subscribe-ka share-ka like iyo comment qurux badan haddii ilaahay raali ka noqdo waa kuwan asxaabe caagadihii kuwa saxamada ku rida kuwa waxa ku rida alaabta miisaska qadada la saarto kuwa ubaxyada ku riday kuwa waxa ku rida kuwa ubaxa la gashto kuwa shamacyada alaabta la saarta ku ritay waa kuwa shamacyada qaar caagadaha aan saan ugu baandeeyay si uusan waxa dhan isku dhaqasmin halkan waxa iigu jiro caagan asagana istiraashooyinka halkan ayagana waxa iigu jiro alaabaha sharaxaada miisaska qadada lagu sharaxdo sidaan baan u soo wada baandeystay shay ma kaaga qaldamayo halkan ku yaala wuu ku xifdismaaya bus iyo boor iyo balaayo dhan isma arkaysiin ilaahay ha naga haayo waa sidaan wixii baca ahaa bicihii aan ku soo wada guray galalka sharaxaadaha dacsadihii mushqusha shukumaanadii bustayaasha martida barkimaha martida wixii oo dhan waa kuwaas halkaas ayagana ku baandeeyay saas storka uu siyara loo shidaya haddii ilaahay raali ka noqdo jawi degan saanagu ku baandeysan yahay wixii markii aad rabtidna kala soo bax marka qol yar oo store gurigaaga haddii aad ku leedahay halkan go'yaashii bustayaasha kuwii la gashanayay asaan ugu soo wada nadaamsaday halkaas koreetana waxa ii yaalo oo ku raseeyay bustayaasha fadhiga lagu sharaxdo ama marka xilliga maaragtay TV-ga la fiirsanayo kaleeto aad hubsanaysid marka qabow yar dareentid halkaana waxa saaraya haddii ilaahay raali ka noqdo wixii baca ahaa bustayaashii aan soo baandeeyay dacsadihii aan soo baandeeyay shukumaanadii waxyaalihii oo dhan halkaana waa kana saana
saakadooyinkayga iyo khamaarada iyo jaakatiimada iyo waxaas ugu soo baandheeyay. Halkaan bustayaashaas aan ku baandheeyay ilaa intaa waa ii bannaan tahay. Bacahaas aan ku baandheena. Halkaana waxaa soo dhigi doonaa caagadihii aan sharaxaadihii iyo dhan aan ku soo baandheeyay. Waana qol yar oo guriga iigu dhex yaalo. Marka haddii aad babaayoy ku wareertay qolka sidaas ayaad u nadaamsan kartaa haddii ilaah raali ka noqdo. Wax walba haddii aad fududaysatid oo adiga nadaamsatid wuu kuu fududaana. Laakiin haddii adiga aad caqli iyo taatika u keeni weysid waad ku wareeraysaa haddii ilaahay raali ka noqdo.